بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا يا رب العالمين. إله حنونك عالمك حريي ربك يونك الطلقات الحقيقة waxaan la hadlayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana u sheegayaa taariikh waqtigii Cabdullaahi Yuusuf iyo Jaamac Cali Jaamac ay isleynayeen laba wasiir baa xukuumaddii Cali Khaliif ku jiray ninna waxaa la oran jiray King Kong Allah u naxariistee ninna waa Xasan Abshir intii Cali Khaliif u yimaadeen bay waxay yiraahdeen Jaamac Cali Jaamac oo madaxweynaha xaqa ahaa ayaa Cabdullaahi eryoonaya oo nala diriraya nacaawi King Kong iyo Xasan iyo wixii dowladda kaga jiray ayuu faraha wuxuu saaray kolkii hawshii dhammaatay oo Cadda Muuse iyo Cabdullaahi heshiiyeen kelmaddii ugu horreysay ee ka soo baxday nimanka Maxamuud Saleebaan ee siyaasiyiinta ah waxay ahayd Cali Khaliif baa Puntland burburinayay kuwii u yimi ee ka codsaday baa sheegay iska dabal kuwa kale taariikhda ninka u soo joogay baana sidaa darteed wax aad ku darsataan ee dowladda federaalku ay ku darsato yaanay jirin waxbaa ii muuqda waxa ii muuqda waxay yihiin tuduc gabay uu lahaa Faarax Nuur baa waxaa ka mid ahaa waraabaha ciyaayow adaan kuu warramayaaye ha warwarin waxbaan kuu ogahay wiigan dabadeed waxyaha nin weyn laga jaraad walamsan doontaa meeshaas Puntland la yidhaahdo waxa weeye waa u dhammaatay meelay u dhammaatayna waxbaba wax ku darsanina walaa Axmed Karaash walaa Siciid Deni walaa mid kale midna waxa ku darsanina haddaad wax ku darsataan waxaa idin sheegaya kuwa aad wax ku darsateen waa dhaqan beesha yaalla qodobka intaasaan ku dhaafaya waxaan shalay BBC-da ka maqlaayay Siciid Cabdullaahi Deni oo yidhi waxa lagu xadgudbay Somaliland buuhoodla la geeyey diyaaradda wa'ah baladhna waxa la geeyey diyaaradda wa'ah madaxweyne Muuse Biixi oo baarlamaanka maalin ka hadlaayay wuxuu yidhi waryaalahan idina wada hadal iyo heshiis baa la galay baad sheegaysaan caalam isu gudbayaana ma jiro aafaa dhacday dadkii baa idlaanaya markaasaad leedihiin waa la isu tegayo heshiis baa la galay war waxba lama gelin waa runtiisa dadka buuhoodle ku idlaanayaa waa Soomaali dadka ku idlaanayaa badan waa Soomaali dawadii la geeyey Garoowe been idiin sheegi maayo farmasiyaasha Boosaaso iyo Garoowe taalla waa la iibinayaa
hadduu siciid buuhoodle geen waayey oo badhan geen waayey oo uu leeyahay puntland bay ka mid yihiin shalay bay caddaatay inaanay ka mid ahayn afkiisay ka soo baxday anigu hafri maayo markaa siciid waa afhayeen qodobkaana intaasaan ku dhaafayaa garaad saleebaan waxaan leeyahay warniyow haddaad muslim tahay war cimri baa tahay war wuxuun haddaad xeerinayso war dhulbahanto gudnimaad u horseeday orodoo sarmaaye aad haddaadan tegayn orodoo saax dheer tag oo garaad jaamac u tag isaaqu way ka dhaqan wanaagsan yihiin maxamuud saleebaanka saax dheer buu ixtiraam ku qabaa ninka la yidhaahdo garaad jaamac garowana ma tago hargeysana ma tago waxa garaad saleebaan ku naanaabay garoowe waa gunnimo nin gunnimo raadinayana dhulka anigu kama qaadi karo laakiin waa hadalkii iigu dambeeyey oo aan kula taliyo garaad saleebaan war iskaga tag 3 axmed karaash waxaan leeyahay waxaad ka soo durdurisay taleex maamul baa lagugu ogaa oo aad madaxweyne u ahayd wasiir baad soo doonatay abaalkeedii waad haysaa taariikh baa kugu suntan taariikhdaasi waa taariikh gunnimo taariikh aad ku beddeshaa maanta ku hor taalla haddii kale qarniyada soo socda waa lagaaga sheekayn intaana axmed baan leeyahay 1 milyan ee dowladda federaalku ay gargaarka dadkii daadadku ku soo rogmadeen ee qardho ugu tala gashay ugu dhiibtay siciidani xalay xaajiyado ayaa xildhibaanadii garoowe loo siinayey si ay axmed karaash u ridaan war waxaasoo kale miyaynu aragnay miyaynu maqalnay ma taariikh baa alxaqiiqa سعيد عبد الله الديني وحن لايه بريتش سومالي لاند بروتكتريت بانونه سومالي لاند بانونه وقوي بانونه هاي وحكالي او آدن اوغين بانونه هاي بينكو شيء ماي وانو اسكو خسبان لهاي اساق وحبور رباه waxa uu rabaa annagay nagu xidhan yihiin sool bay ku xidhan yihiin boohoodlay ku xidhan yihiin laas qore bay ku xidhan yihiin waa mabaadiida waa laga heshiiyaa laakiin isku isir baanu nahay siyaasad maaha isku qolaanu nahay siyaasad maaha iyaguna waa og yihiin annaguna waanu ognahay
waxa meesha ka maqan wixiina midayn lahaa oo isku aragti aanu ka noqon lahayn halkii aad shalay u hadlaysay ee afhayeennimada ahayd qodobkaana intaasaan ku dhaafaya halla gurowlaha waa guddoon waana shay gara ee gaadmo iyo ninkaan laga filayn gacan fudaytoonna eegana tukubihiisa waa lagu gargaaraa gudabaas mid laga keenayoo garaca mooyaan ma gilgilo duqaytida ninkii aw ka soo go'ay dirtaba geed malka abaa jira iyo lama garaacaan isgaylaamintii maxamed halacyo golongolkii raage ninka garanayaan haytan iyo geellahaad qoye intase ina goleed iyo nin ragitan isku soo gaadhay oo gaadhba gaadh naga beddelay goor dambaa timiye sida caarshe ninkaan gubannin jaahiisu guddigood cafi bay iga yihiin goobta aakhiro gebgeb faranji guul kalama tago nin u garxiraaye adiguna guclahan waad yarin goshkan dabadeede siciidow guclaha waad yarayn anaa taa kuu ballan qaaday alxaqiiqa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu اللهم اشف مرضانا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه